galay runtii koobabkii la sheegay hadda ay wasiiradu sheegtay oo laga qayb galay oo laga bilaabo ilaa 3 jeer hadda aan marayno 3 sano ee hadda la soo dhaafayba si fiican looga qayb qaatay intaasoo dhan waxay ahayd foundation sahan isdiyaarin iskululeys ayay ahayd waxaasoo dhan waxaan rajaynaynaa marka hadda wasiirka cusub xilligii waxaa la soo gaaray marka waxqabadka dhabta ah marka haddan ayadoo laga faa'iidaysanayo foundationkaas ay wasiiradu hor u soo dhigtay waxaan rajaynayaa markaan in la soo gaaray xilligii marka waxqabadka rasmiga ah loo gudbi lahaa ee dadkeennu ee wax lagala tacaali lahaa dee waxyaabaha aan sheegnay hadda dhibaatooyinka waaweyn ay jira xilligii lala tacaali lahaa ee wax la taaban karo ee dadka muwaadinka gaara oo taabta la qaban lahaa ayaa la joogaa dad fara badan oo isku dayo badan runtii oo la tacaalaya howlahaas si gaara privately ayaa jira hadda xildhibaan xidig baan arkayaa oo calafka xoolaha iyo waxyaabahaas iyo isku dayo badan runtii dadka ka waday ka mid ahaa inaan sida nolosha waxa ugu muhiimsan waxaa waaye way of life-ka xoolaheenna iyo dadkeenna sidii aan ula tacaamuli dinay deegaanka si ka duwan inay nolosha aan ka dhigno ayaa aas marka waxaan qabaa oo muhiimaddu ay tahay inaynu wasiir in sidaa aad u xiratay waa maadaama uu Bashiir askari yahay uniformku muhiim buu yahay marka already uniformkiibu soo xirtay marka waxaan rajaynayaa sidaasoo kale inaad annagana noogu wada xirta dhammaanteen oo aan kuwa cagaara soo helo meeshaad kala soo baxdaaba garawaa durbadii basri marka in aynu dhammaanteen marka aan annaguna kuu noqono ku support garayno oo supportive kuu noqono hawshaas waa weyn hawlahaas waa weyn iyo halistaas maaraynta halistaas waddankeenna aan ku jirno inaguma soo wajahnay inagu bartanka aan ugu jirno bartanka ugu jirno daawadeedii iyo maaraynteedii ayaa laga raba marka hawsha ugu culus ayaa meesha taala waana midda keentay inay tiir gaara ay noqoto 4 meelood marka loo dhigo ihtimaamka iyo shaqada ay rabto xukuumaddana inay geliso 5 sano soo socota 4 meelood marka loo dhigo meel ka mid ah ayaa wasaaraddan hawsha ay qabanaysaa marka taas intaasaan ka leeyahay waxaan isleeyahay khibradna uma yara